madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud maanta ayuu soo gaaray Jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale waxaa isla maanta soo gaaray Jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha maamulka Somaliland labada mas'uul si fiican ayaa lagu soo dhaweeyay Jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa markii ay madaxdu ka yimaadeen dhinaca airportka waxa uu ugu tagay oo ku qaabilay hotelkii laga dejiyay madaxda magaalada Djibouti ee Kambiski madaxweynaha dalka Djibouti iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa kulan wada qaatay kulanka kadibna waxaa ku soo biiray madaxweynaha maamulka Somaliland Salaam iyo Ismail Xabeyn kadib madaxdu waxay wada qaateen qado iyo kulan gooniya kulamadaas oo dhan wax faahfaahin warbaahinta lagama siin laakiin waradan ka helay waxay sheegayaan inay iska ahaayeen kulamo iska caadi oo shirka ama kulanka berita dhici doono loogu gogol xaarayo waxaa lagu balansan yahay marka maalinta berita marka iska nastaan madaxdu caawa in kulan lagu qaato xarunta madaxtooyada Jamhuuriyadda Djibouti kulankaas oo goobjoog ka ahaan doono madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaana loo sheegay kulankan inuu ku saabsan yahay arrimaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xiriirka maamulka Somaliland